madashan oo kulmisay badiba cuqaasha waayeelka waxgaradka haweenka dhalinyarada oo ka qabsoontay beerta kulan oo ka taala magaalada Huluul ayaa daaranayd beesha Cabdulle Axmed Faarax oo ku shirtay magaaladaas baa go'aamo ka soo saartay shirkoodii go'aankaasi oo ahaa inay beesha Cabdulle Axmed ay gebi ahaanba si buuxda u taageeraan isla markaana ay codkoodii cududooda la garab taagan yihiin musharax Jaamac Axmed Oogle Caana Boode haddaba waxa madashaasi ka hadlay badiba waayeelka Cabdulle Axmed oo hadalka isoo maray ayaa ku adkeeyay inay boosheedu ay raacsan tahay Jaamac Caana Boode أحمد فارح يقول الصبر كان باشا عبد الله أحمد كسوتي واحد سلامة يا برشوينتا هل كان كسر شرتي وعود الدقمة هلول ما طاي طارق وطاي أفر يلا بعتنكي بشي شناد مي ururka haweenka ururka dhalinyarada ururka waayeelka culimada dhalinyarada xildhibaanka musharaxa Jaamac Caana Boode dhaanaysa rag yaqaan bakayga qaatay aan ku soo dhaweynayno degmada Huluul xusbiga Ucud annagoo si buuxda maanta u soo galay xusbiga Ucud haddaanu nahay beesha Cabdulle Axmed oo aan kala badnayn oo kala qaybsanayn wixii naga baydana ay yihiin baadi oo aan cidinoo qaadi karin bulshada Soomaaliya waxaan u sheegayaa meel kasta joogta hadday qaar magacayaga ku adeegtaa way dhici kartaa ama dhaadheer yihiinba waa qaar naga baadiyoobay annaga ma odhanayna waa qaar baadiyoobay Caana Boode Jaamac Axmed Oogle caan soo baxo soo taageerayaashana waxaanu ugu sheegaynaa inaanay warqadda xumayn oo farta xumayn oo kaarka xumayn oo aanay kala warwareegin dhabban wada madax baan doonayna meesha la calaamadiya astaantina waa dawacada miyaan habar jeclahayn sidaayada warka dawacadu dee maanta haddeen cod habar jecla waa dhibata may maqlaysaa geedaha ka dhirigto iyo adhigaba waxa weeye taageerayaal saa weeye adiguna waxa weeye musharax waxaanu ku leenahay kugu soo dhaweynaynaa ilaahay xilka aanu ku dooranay ee farta ku sii doonaa haddii ilaahay 22 May 30 May haddii ilaahay nagu sibo farta waa ku siiyayna adigana waxaan ku rajaynayaa ilaahay inuu ku fudayo waxay noo ballan halka socda iyo dheeraad iyo gacmo isqabsi waxay noo ballan inayna dib u kala noqon waxaan ahay wakiilka caaqilka beesha Cabdulle Axmed Faarax waxaan halkan maanta ka shaacinaynaa ama ka muujinaynaa ama ka taageeraynaa xildhibaanka ka sharaxan xusbiga Ucud ee magaciisa la yiraahdo Jaamac Axmed Oogle Caana Boode xildhibaankaas oo ka taageeraynaa ka shaacinaynaa halkan maanta waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow haddaanu nahay beesha Cabdulle Axmed waa ku taageeraynaa aad baanu u taageeraynaa waxaanu shaacinaynaa inaanu dooranayno oo codaynayno xildhibaanka أنا هاي سليمان عبد الله علي كرسورة واحد سود ويلي يا عانا بوده جامع أحمد أوغلي قد كي يجرى حتى عبد الله أحمد أبو سيرنا طبعا أرهي كاوان كنت شني إن بدن بانو ودني إن بدن بانو كوريجني أدوكو هاولو ويسك بديهين قوان كي كبضبيستا هاوها إنا نصينو Jaamac Axmed Oogle codka yaga ayaanu hadaanu nahay degmada Huluul waxaanu siinay codkii Caana Boode inana waanu ugu daray farasna waanu ugu daray shabaabirkii inankii Jaamac Boode ahaa codkii waa siinay calankiina waa u sidnaa
cadowga nooga hay waa inaan ganta waho guuliyo nasiib laho gacalkii rabaayo laga giijiyaayo gool qaadanaya guulay allahayo halkaasaan horta aynu codku ugu dhan yahay codka waa siinayna dadkan ka soo qayb galay xafladda dhammaantood dhalinyaro iyo waayeel xildhibaano halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa beeshan Cabdulle Axmed ee aan ugu qabanay xafladda ay ku soo biirtay xisbiga ucud waxaanu leenahay hambaliyaanu leenahay waayo waxa weeyaan dadku waa isku mid reerka haddii goobta laga waayo bay xun tahay maanta waxa inoo ballana waxa weeye cududeena inaynu siino Jaamac Axmed Oogle fartana aynu ugu hubsanno aad iyo aad baanu ugu faraxsanahay go'aanka halkan ka soo baxay beesha shiraysay ee Cabdulle Axmed ee maanta xafladda noogu yeedhay ee caaqil iyo guurti iyo waayeelkii iyo culimadiiba maanta noogu yimaadeen arrinkan kuna taageereen xildhibaanka Jaamac Axmed Oogle aana boode ay ku taageereen taageeradana ku muujiyeen aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waa laga filayay guurtida reerka guurtidiisii iyo waxgaradkiisii Axmed baa ahaydeen mustambeedkii baa ahaydeen Cali Axmed weligii baa soo legdamay macnaha halka Cabdulle raaca oo baabuuradkeedu ahaa way idinka filaynay aad baan idinku hambalyeynayna waxaan leeyahay hadda laga tashaday nin ma odhan waayo waan aragtaan Cabdulle Axmed baanu nahay waanu dhannahay waanu shiraynay bisha 20keedaanu shir ku ballansanayn wuxuu naga soo gabagabay bisha 24keedii waxaan ku hadlayaa afkii gudidii loo saaray shirka Cabdulle Axmed baan ku hadlayaa anigu gudoomiyeedii gudidii shirka loo saaray afkeedii baan ku hadlayaa waxaanu isku raacnay inaanu codkayaga iyo cududayadaba aanu kaga qayb qaadano xusbiga ucud ee uu ka sharaxan yahay Jaamac Axmed Oogle caana boode geesta kale isna waxa halkaas hadal ka soo jeediyay musharax Jaamac Axmed Oogle caana boode marka xiga dhammaantiin aad baad mahadsantihiin dadweynaha halkan isugu yimi waxaan kaloo maanta mahad gaar ah u naqayaa beeshan Cabdulle Axmed Faarax sida mugaya miisaankaba leh iigu casumay ee iigu haneeyay taageeradoodii runtii shirkanu muddo 2 bilood baanu ka warsugaynay runtii beeshanu waa guurtidii Axmed Faarax ma degdegaan muddo 2 bilood aanu ku dul wareegaynaa anagoo musharaxiin badan wax ka soo baxaya nin waliba uu dhagta taagayay qudhayada fool badan baan hayso talo maxay dhali doontaa baanu lahayn alxamdulillah rabbil caalamiin maanta mar haday ii garteen codkoodii aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa maanta waxaan u malaynayaa dee xagga rabbi mooyaane kulli aad baan u faraxsanahay hadday tahay deegaanka Axmed Faarax oo dhan jiid kasta ay tahay sida iyo si lamid ah baa leega soo dhaweeyay ilaahay waxaan ka baryay inuu nagu guuleeyo hawsha dhammaanteena kulli waxaan u malaynayaa dee guul baynu rajaynaynaa insha Allah maalinta balanteenu waxa weeyaan 31 May maalinta cod bixinta calaamadu waa garanaysaano waa taalka ku sawiran waa dawaco calaamada horteeda goobaabinta ah baa la calaamadinayaa ومحمد أبادر بوشة TV عرفوين